ما شاء الله تبارك الله maantay waa guul Soomaali weynay meel kasto aad joogtiin adduunka dacaladiisa waxa haysiin kor u tuura Somali Airline haday maanta soo noqotay maantay waa guul baan leeyahay page-kayga waxaan soo dhigay sheekadan official intaysan u soo bixin baa waxaan soo dhigay arrintaasaan maqlay ee marunba I hope inay run noqoto aad baan u faraxsanahay inta commentiga ka soo bixisay abeenta ku haysay candhuuftiina dib u laqa kana xow nafta waabaan leenahay barara qarxa hadaa rabtiin adee reernimo iyo nin jeclaysi iyo qarannimo laguma gaaro runtan idin sheegaya qarannimo laguma gaaro nin jeclaysi iyo adeerkaa ka fiican iyo horay baa idinku sheegay adeerkay maaha adigana adeerkaa maaha waxa kaliya naga dhaxeeya waa qarannimada Soomaalinimada calanka kaas inaan difaacano oo wada ilaalsano waay waxba kuma taraysa reerkan ahay reerka adiga aad tahay xagga dhigo waxas barayfad waay mar kale waxaan leeyahay maanta waa guul official baa loogu dhawaaqay laba diyaaradood in hadda la soo gaday kuwa kale oo badan in la soo gadayo official weeye arrintaas guul iyo gobonnimo weeye kor ina u soo baxna waay wiilka Kenyaatiga Kanadiyaanka ina la tartana waay wiilka Ugandayska reer iyo xaafad iyo meel yar kuma koobna saaxiib hadaadan rabin oodan jeclayn ninkan maanta madaxweynaha ka ah oo astaanta qaran oo maanta madaxweynaha ah wad iyo waqti buu leeyahay bari ba mid kala imaanaya waxa laga yaabaa adeerka inuu yahay Soomaalinimada iyo calankeena iyo ciideena taas ay nagala horeyso qofka maantay waxa ama maaragtay qofka wadanka maantay maamula qarannimadayada iyo jacaylka wadanka jecelnahay waa inuu ka qiimo sareeyo nin jeclaysiga waay wiilkaaga hadaad rabtid inuu bari mustaqbal yeesho oo madaxweyne uu noqdo oo wax weeye qarankan hogaamiyo de qarannimada inaad taageertid waay hadaad qof kale lugta ku dhigtid oo isla maaragtay aad horay u socdo aad diidid oo qarankii horay inuu u socdo diidid de adigana wiilkaagu noqon mahaya adna noqon maysid kana adaa u diiday adna bari baa lagu diidaya marka waxa weeye jugjug meeshaada joog weey hambaliya maanta waa guul baan leeyahay shaqo aadi mahayo maanta celebration weeye ciid bay noo tahay maanta oo kale maanta ciid bay noo tahay farxad baan la dilaacayaa aad baan idin salaamayaa dhageysta ku soo dhawaada officialka oo lagu dhawaaqayo oo waxa weeye maaragtay arabeenta aysan ahayn official iyadoo lagu dhawaaqayo iyo waqtiga ay hawl galayso iyo waxaas oo dhan ku soo dhawaada ila dhageysta maanta oo ay taariikhdu tahay 28 bisha 2025 waa maalin taariikh gaar ah u leh ummadda Soomaaliyeed iyo dawladooda intaba waxaanu maanta dib u soo celinay shirkadii Somali Airline oo 34 sano ka hor ka baxday adeega iyo hawada caalamka iyo tan Soomaaliya labadaba waxaanu maanta heshiis kala iibsi ah aanu la bilownay shirkadda Lema Air Group waxaanu ka iibinay laba diyaaradood oo ah Airbus A320 shirkadahaas waxay howlgelin doonaan haddii la idmo muddo 2 bilood gudahooda baanu jecelahay oo kooban inay ku howlgalaan heshiiskaas maanta ku soo gabagaboobay magaalada Muqdisho xafiiska Prime Ministerka aanu ku kala sayaxanay wuxuu soo socday muddo 2 bilood ah dalal badan baa la isugu tagay waqti badan baanu gelinay muddada kooban oo hadda xafiiska joognay waxaanu ballanqaadkayga ahaa markaan aan xafiiska la wareegay inaan hawada gelin doono oo soo celin doono Somali Airline sida ugu dhaqsaha badan waxaan ilaahay uga mahad celinayaa ballanqaadkayga aan xafiiska ku nimi qodobkii ugu muhiimsanaa maanta inaan furihiisa ugu horeeyay aanu bilownay oo aanu gadnay labada diyaaradood waxaanu rajo ka qabnaa oo go'aanka dawladda Soomaaliyeed yahay ina arrintaanu tahay bilow diyaaradaha waxaanu u gadi doonaa si raxana hadda waxaanu howlgelin doonaa labadan waxa ku xigi doonaa 2 ama 3 kale waxaanu ku xigi doonaa in la eg waxaanu doonaynaa muddo kooban inay la tartamaan adeegyada caalamiga ah diyaaradda Somali Airline haddii alla idmo wax weyn bay waxay ka tari doontaa sumcaddii iyo karaamadii ummadda Soomaaliyeed
waxay wax badan ka tari doontaa shaqaalaynta iyo muddada dadka oo dhalinyarada wax baratay inay shaqo abuur u samayso. waxay wax badan ka qaban doontaa dhaqaalaha waddanka. waxaad ogtihiin dadka iyo Soomaaliya waa dad dibadda xoog u jira, safar badan, maslaxadahaas dhan oo dhaqaalahooda iyo danahooda iyo businesskooda waxay ku fishidaan diyaarado dalal kale leeyihiin iyo kuwo dal kale leeyihiin. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inay bilowgaas aanu samaynay. waa diyaarado ay iibsatay dowladda Soomaaliya oo ay leeyihiin shacabka Soomaaliya. waana qorshaha xukuumadda dan qaran iyo aragtida madaxweynaha Soomaaliya Dr. Xasan Sheikh. waxaan u mahadcelinaynaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda dan qaran Xamse Cabdi Barre oo mar walba ku dhiirigeliya shacabka iyo dadkiisa isku filaasho iyo isku tashi inay gaaraan. waxaan sidoo kale u mahadcelinaynaa aragtida madaxweynaha oo iyadoo nagu dhiirigelisay inaanu ku dhiirano inaan maalgelin in awooddaas leh iyo huyuushkaas inaanu dalka iyo dadka ku soo kordhino. waa bilow ma aha dhammaad. waxaan ummadda u ballan qaadaynaa sida marka hore aan ugu ballan qaadnay labadaas diyaaradood inay dhaqso howlgeli doonaan. kuwa gudaha ka shaqeeya iyo kuwo kaloo caalamiyana inaan ku soo beerin doono. aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinayaa tiimkiina miidiyada. waxaa la yidhaha Soomaali war dhaadhaama mar dhow indhihiina ku arki doontaan Somali Airline oo ka duulaysa idaacadda International Airport.